بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan in shaa allahu tacaala isku dayayaa inaan xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo dalaalaadkiisa aan wax ka tilmaamo. siduu abu hurayra nebiga ka wariyay calayhi الsalaatu wasalaam, nebigu wuxuu leeyahay: maa ra'aytu midla الnaari naama haaribuhaa walaa midla اljannati naama taalibuhaa. xadiidkaasi waxaa soo saaray imaamu tirmidi iyo طabrani iyo ibnu mardaweyn. sheekh ilalbanina wuxuu ku tilmaamaya inuu xasan yahay. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy: maan arag wax naar la mid ah oo uu seexdo ku ka cararaya. manaan arag buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam, ama ma garanayo wax janno la mid ah oo uu seexdo ku dalbaya ama raadinaya. yacni nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa naar ninka raba inuu ka cararo oo naari waxay tahay garanaya, iyo rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga tilmaamay oo aada u tiro badan. nin naartaasi ka cararaya oo haddana seexanaya maan arag buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam. waxaa la mid ah janno qof garanaya iyo waxa nicmo ku jirta iyo sida loogu badrhaadhayo ama loogu barwaaqoobayo. jannadaa qof hunguri uu ka hayo oo raba inuu helo, oo haddana caajis iyo hurda ay haysoo seexanaysa, isna maan arag buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam. taa macnaheed waxa weeyaan alkhaa'ifu laa yanaam wاlraaji laa yanaam. ka baqayaa ma seexdo, ee maxay ka baqayaa? cadaab ka baqaya. maxaad u malaynaysaa haddii dab halkaa ka soo gubto oo aada aragto kayntaa kugu xigta ama guryaha kugu xiga ama magaaladaa kugu xigta oo ololaysa oo holcaysa, oo aada yaqiinsanto aada aragto dabku sida uu yahay, ama dhinacaaga fulkaana ka qarxo buurta aad arkayso dabka lalinaysa, dhagxanta dabka aada daadinaysa, ma u malaynaysaa inay kugu soo dhacayso? horta iska yaro seexo, waa iska baxa dabkuye cabbaar seexo ma kugu soo dhacaysa? waa waxaan macquul ahayn. qof dab arkaya uu ku soo socdo inuu seexdaa waa wax caqligu inuu aqbalo ka fog. wuxuun bay dhici kartaa haddaanad rumaysantahay waxaan inaanu dabba ahayn, ama maanka wax kaaga dhiman yihiin doo aanad wax kala garanaynin, markaa unbaa dhici karta inaad seexato. walidalik buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa khaa'ifka noocaasi inaanu seexanin. qofka rajaynaya maalan fursad ayaa taalla lagu leeyahay haddaad waxoogaa shaqayso, hargeysiya waxa yaallo keligaa baa leh, ka kaalay janno iyo adduunka iyo waddanmo waaweyn iyo waxaa ka kaalay. daarahan yaryare hargeysa ka dhisan iyo inta ku jirta ayaa lagu yihi haddaad saacadahaa shaqaysa adaa leh. qofka hungurigaasi uu hayo ee isla waad xaqiijin karaysaa inaad intan hayso, waxaa laga yaabaa inaad habeen iyo maalinba la seexan laaday meel waxoogaa yaroo faa'iidaa lagugu sheegay. soomaalidu de haddii meel dunida dabadeeda laydha way ka qaraxdo waxoogaa yarbaa ka jira, geedigaa loo wada xidhxidhaa. reer miyiga meel cidlaa degane abaara haddii la ydhaha halkaasaa barwaaqa ka jirta, geedigaa loo wada xidhidhaa. waa dhaqan bini aadam. adigoo og fursaddaa inaad helayso, janna waxay tahayna garanaya, miyaa cagsi iyo kasli iyo hurdo iyo waxqabasho la-aani kusoo gelaysa? xadiidkan markaa dadna ka leeyahy waxa weeyaan ramadaan baa dhammaanaysa. dadku wakhtiga ramadaanta maadaama shaydaanka intii waaweyneyd la xidhxidhay, maradada ay xidhan tahay, dadku ramadaanta nashaad bay helaan, cibaadaday badsadaan, ilaahay bay ku xidhmaan subxaanahu wa tacaala,
wardi badan aanay hore u akhriyi jirin bay wardiyaan soom bay soomaan salaatuleyl bay tukadaan waxay isku dayaan inay afkooda haystaan in badan bay taaco ku dadaalaan waana fursa runtii ay tahay in lagu dadaalo laakiin ramadaan waa dhammaanaysaa fama bacdaha maxaa ka dambeeya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla isagoo saxaabadiisa la hadlaya wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih low ra'aytum maa ra'aytu ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira qaaluu wamaa ra'ayta ya rasuula allah nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagoo salaad tukaday oo ku soo jeestay saxaabadiisii ayuu wuxuu leeyahy ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waxa aan arkay haddaa arki lahaydeen waxaan arkaya haddaa arki lahaydeen in yar baa qosli lahaydeen yacni qosalku idinkama yimaadeen in badanna waa ooyi lahaydeen taj'aruuna ila allahi subxaanahu wa tacaala in badanna waa ooyi lahaydeen saxaabadii waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisii oo maxaad aragtay waxaa kalifaya aad aragtay waa maxay nebigu wuxuu ku yidhi ra'aytu aljannata waannaar waxaan arkay buu nebi moxamed leeyahy calayhi salaatu wasalaam janno iyo naar baan arkay akhwatii fi lcaqiida sunnada iyo diinta waa ka mid qofku inuu rajeeyo ilaahay nimcadiisa iyo naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa sicatu raxmatullaahi qofka arkaa ma quusto laakiin waxay culammadu yidhaahdaan bayna alrajaa'i waaltamani faraq weyn baa u dhexeeya waxay yidhahdaan altamani yusaaxibuhu lkasr tamaniga yididiilada qofku wax iska tamtamaniyo waxaa la socda bay yidhahdeen kasl iyo cajsi wax ma qabanayo laakiin waa iskaga riyoonaya waxa inay saasi noqdaan ama u helo waa ku riyoonaya laakiin maaha qof camal ka soo fulayo dhaqan ka soo fulayo amaa bay yidhahdeen rajaagu waxay yidhahdeen saaxibuhu waa mujid waa qof dadaalaya waa qof dariiqa ku sugan rajana qaba inuu waxaa gaari doono walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih walaa yajid lahu min duuni illahi waliyan walaa nasiira ma aha buu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala tamanigiinna iyo yididiiladiinna riyadiinna ma aha iyo riyada ahlu kitaabka toona ahlu kitaab intay meel fadhiisteen bay waxay yidhahdeen naxnu shacbullahi almukhtaar ama lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara janno geli maayo waxaan yahuudiya nasaara ahayn muslimkuna hadduu isna yidhaahdo bes muslim baan ahay ilaahay wuxuu leeyahy yididiilo maaha arrinku iyo riyo maaha ee man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay yidhi cidda xumo samaysa waa lagu abaalmarin ilaahay subxaanahu wa tacaala sokadiina heli maaya cid u hiilisa ama u gargaarta walidalik ayaa alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raxmat ullaahi caleyh wuxuu leeyahy rajaaga la sheegaya qofka taqsiirku uu ku dhacay ee dee ilaahay xuquuqdiisi aan wada dhammaystirin ilaahay malaha ha wanaajiyo waa qof kasta oo muslima markaa qof kasta oo muslimi ilaahay ma gaadhayo wixii uu xaq u lahaa inuu la wada yimaado laakiin wuxuu ogyahay ilaahay wuxuu nimco siiyey inaanu ka wada mahadnaqin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha idan shukrigaaguna waa laa yuxsaa inaad la imanayn baad ogtay waa dadaasha laakiin tuxsini danna billaah ilaahay baad balaa wanaajinaysaa waxaad is leedahay ilaahay intaa waa kaa aqbalaya cafwigiisaad rajaynaysaa waxaad is leedahay ilaahay waa ku cafinaya kaasi waa raaji waxaanay u dhowday in ilaahay ka aqbalo dembigiisa masaxo qofka taaco badan la yimi ee rajaynaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka aqbalo waa raaji amaa buu leeyahy qofka intuu macsida dabaasho murugana aanay ka haynin haddana rajo qaba kaasi waa guruur buu leeyahy wagarakum billahi algaruur kaasi waa mid kadsoomay rajo maaha taasi ama rajaa maaha waayo rajaagu wuxuu ku xidhan yahay camalka wanaagsan ilahay wuxuu ina leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana ilaahay rasuulkiisa ku dayasho fiican baa idinku sugan yay ugu sugantay liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir qofka rajada qaba
إلهي كعب سنية ما لنت قيامة وذكر الله كثيرا قفك طريق النبي محمد مرى عليه الصلاة والسلام ظنوا هذا إلهي وانا تسوه في عيه لكن تمني معها خوفك إن إلهي لقى عبصده وإنه خوف دبا النقطة نار إنها تكبقطها وإنه واحد دبا النقطة إمام الغزالي رحمة الله عليه باو حليه خوف كدبت أبو يدي مثال بانسينية أدونك إلهي الرميسان مالنت قيامنا الرميسان لنا وان عبصانيا إرقاسي ودبكو يهدو صادق يهيبو ليه waxaa ka bixi lahaa maka iman la arrimo tusaale buu yidhi haddaad nin boqora ka cabsanayso ama qutaacu ariiq kuwa waddada gooyo jidgooyo dayday jidgooyo ku jira aad ka cabsanaysa buu leeyahy qofku wuu naxayaa oo waa baqayaa jidhku waa gariirayaa oo hurda ka iman mayso oo cunno u dhadhami mayso oo waxaasoo dhan waa kala tegaa siduu u baxsan lahaa oo xataa reer iyo ahalku wax weyn lama aha dhulka iyo deganaashiyo wax weyn lama aha meeshii dadkuba deganaa inuu ka cararo maadaama aad boqorkan isleeday waa ku dilaya ama waa lagu xidhayaa meeshii magaalo ahayd ba inaad ka cararto bannaan afka saartaa bay u dhowday kayna cidlaa iyo waxsha inaad u baxdo raaxada wuxuu ka doorbidayaa buu leeyahay tacabka iyo mashaqada iyo daalku ka doorbidaya khatar oo dhan buu u banbaxaya waayo khatar ka weyn buu ka cabsi qabaa buu leeyahay فكيف من يخاف بالنار بولي مركا هدي خوف جرو وهاد النار كعبسنا يسو قفك النار كعبسنا يا وين محل لقاها بولي وين لقاها بولي حديث كان النبي يقول ما رأيت مثل النار نام هاربها تصال لبات سقوب بحين يبو حلي دات كان غفلة وكل عضيو أما دات كان كتسومي أدونك كو كتسومي كو مشغوليو وارتن زوليسي تغيسه هكا فكرين ماشي ادو غوريسه جيدا تهي ماشي اد كسوعته كفكر يا ماشي لو اروريو الهي قرانك وحو كوغو شيغاي بولي وين منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا مدين كمدي مجرو الا ايو جهنم وهو اروريا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إلهنا وحولي وحنو بدباديننا انت الله كعبسطي النار كدورسطي بقطي مركي دونيدا جوجتي اما كوي ظالمين تاها ايغو رندودا لو طوريا وحولي ورودك والله با نجاتك سشكو كجرا جهنم ان ادنها صاري سوا الله با جدك الصراط ان ادمري دونتو او جهنم كورمرا او دوبان او افبدن او مدو كورن بريتش دوبان او ليري تيمهو كلا بلغي او افبدن او ليري وا سيفو كله او هدنا مدوه oo haddana jahannamo ku dul yaalla haddaad marayso khatarta intaa leega haddaad ku socoto inaad jahannamo dusheeda mari doonto oo meesha la marayaana uu yahay bridge aad u dhuuban oo af badan oo mugdiya madow waayo jahannamo waa madow oo madow inaad marayso sidaa haddaad ku marayso waana la hubaa buu leeyahay wuruudkaasi inaad u aroori doonto waa la hubaa نجاتك سه كوا بدبادية إنها كجرتا شكي كجرتا أيها الإخوة راجق وطالب مركه خايف كنا وهارب قفك الراجق الرجين إياه وقف جندهم قلوك كجرو علماءنا وحي لهذا منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى أما مدار السير إلى الله حق الرب الله الصعداء وحابي كوكوبم تيبي دهدان مسألة الخوف والرجاء هي مسألة الحب سدح ذا مسألة أي كوكوبم تيبي دهدان الصير إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الإخوة إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا وتلمام يا وحبضا أو كم ده ضدك إلهي كعب صدي يا خائفين تأه خائفين رب سبحانه وتعالى وحكوت المام يا صفات رب ضله كوا رب الرجين إن الصفات بار رب كت الماما أن قرآن كمركا سيأجن مركا إلهي وحكا ورما يدول نار كبغية
مركز ربي وحلي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا دول با إلهي كور ربي فكريه وإلهي مخلوقات كيس كفكريه وعبصنا يا ربي قد حصيه وغفلة أنا هينين ومركز إلهي حصيه هداي فرديان يا هداي سرتشوغان يا هداي تشيفان بالي قفكو صدحدان حالك ما بحو إنو تاغن يهي يا إنو فرديو يا إنو تشيفا وحبا وما دحيا سدح دي سحالة بإلهي وحو تلماما إنو ربي حصيه لكن ما محي وحو كعب سنة يا إلهي ويدي سنة سبحانك فقنا عذاب النار بولي إلهي وداك حمكه فنه عذابان نبت قل كامغان قل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلهي وحط الماما يقول أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد كوا لك عبصدي جنة قليه وحاصون معالي وكوه الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وكوا مركي دونيدا شوغين إلهي كما قنقل يا عذاب كيس إلهي سبحانه وتعالى وحصفين إياه عباد الرحمن كإلهي دبر عابدي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلهي صفاتك كسفية وحكم دكواس هبين ودنين تاغين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صفاتك وقوم مدنا إليه وحكم ده والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب سبحانه وتعالى وحكو صفين يا آخرك وبدبادي والذين هم من عذاب ربهم مشفقون بإلهي إن عذاب ربهم غير مأمون ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب الصموم إبراهيم بن الأدهم شيخ الله يرضى إبراهيم التيمي أياه حليه دوني مركي ولا تشوغه نينكا أنا عبسيدو كبدنين waxaan uga cabsi qabaa buu yidhi inaanu ahlu jannaa ka mid ahayn waayo ahlu jannaa ilaahay wuxuu ku sifeeyey waxay yidhaahdeen innaa kunna qablu fii ahlina mushfiqiin baa ilaahay ku sifeeyey markii wax la isweydiiyey kuwii jannada galay war maxaa jannada idin keenay markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen markaanu ehelka iyo reerka iyagii la joognay qofka bini aadamkii waa markuu ugu nabadda ugu degan yahay markaad gurigaaga iyo reerkaaga iyo daartaada iyo meeshaada joogta waa markaad ugu degantay iyagu waxay leeyihiin markaasaan ugu cabsi badnayn halkaa markaanu joogno ayaanu habeenkii taagnayn oo ilaahay ka baqanaynay oo cabsanaynay sidaa awgeed baa famanna allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum ibraahim ibnu ladham markaa wuxuu leeyahay ninkii adduunka markuu joogay aan ishfaaqaasi ku jirin mushfiqa aan ahayn waanu cabsi qabaa buu yidhi inaanu ahlu jannaa ku biiraynin waxaan kaloo u cabsi qabaa buu leeyahay ninka adduunka markuu joogo aan murugaysnayn النار يا عذاب يا وحصو صعده كم مرغيسنين كان وحنو عبس قبابولين واهل النار كم نقضه ويا الهي بقرانك وحكت الماميه وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن كوي نار كبد بادي جنة قلي بحي ليه وحام هضله الهي نغك حيي عنا الحزن ربنا ان ربنا لغفور شكور ربي قايو واكيد بداف بدن شكورة ساسي لي إذا قفك الدنيا مركو تشوغو أن حزنك هينين بويلي آخرين كبير ويكوا وردن أورنا يبانو بخيا بولي أيها الإخوة نبي عليه الصلاة والسلام دعوين كوبدين شري أنس بن مالك حديث البخاري وحليه كان أكثر دعاء النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
waqina cadaaba annaar naar inuu ilaahay ka magan galo ducooyinka ugu badan ee nebi maxamed akhrinaya calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahay walidalik baa imaamu xasan albasri wuxuu leeyahay dadka badh baa ammaani iyo didiile iyo inay rajo iska qabaan uun isdhigay adduunka ka baxay buu yidhi iyagoon cabsida badani haynin laakiin iskale uun ilaahay baanu malaha u wanaajinay hadday malaha wanaajiyaan buu layidhi camalku wuu wanaagsanaan lahaa waxaa looga cabsi qabaa bay culammadu yidhahdaan kuwaas inay ku biiraan kuwa ilaahay aakhira leeyahay wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay agtiisa waxa uga soo muuqday oo uga soo daahiray waxaanay filaynin dee awal buu dreaming ku jiray day dreaming awal buu maalintii riyoonayay day dreamingka waxay yidhaahdaan waa qofka isagoo soo jeeda riyooda yacni waa iska tamani waa amaaniyaad waa xaqiiqo aan jirin haddaad adigoo iska jiran wax uun maskaxdaada ka guuxaan waa waxaan jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay kuwa khaa'ifiinta axwaashooda nebiguna wuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ibnu cuyayna ayaa wuxuu ka warinayaa ninkaasi ibraahim ibnu ladhab ataymi la yidhaahdo naftayda ayaa waxaan idhaahdaa buu yidhi mathaltu nafsi fi ljanna anigoo midhaheeda fiican cunaya oo sharaabkeeda cabbaya oo bikradaheeda la mubaasharaya oo nolosha ku jira haddana waxaan isqiyaasaa buu yidhi bal anigoo naarta ku jira oo zaquumkeeda cunaya oo sharaabkeeda cabbaya oo sadiidkeedii iyo khasaaqeedii iyo waxeedii wada oo silsiladaheedii iyo aqlaasheedii ugu xidhan yihi dabeetana waxaan idhahdaa buu yidhi nafeey horta adigu keebaad doonaysaa labadaas sawir baan isu dhinac dhigaa nafta waxaan idhaahdaa keebaad adigu doonaysaa labada goorba waxay sheegtaa ya adduunkii igu celiya aan maxay acmalu saalixa waxaan ku idhahdaa buu yidhi haddaad dunida joogtaa umniyadaad hadhow yidi diilan doonto imikaad haysaaye facmalii baan idhahdaa buu yidhi nafay hadda shaqee haddaad joogtaa waktigii umniyada walidalika ayuha alikhwa jannada iyo sifaadkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamayo iyo dadka gelaya iyo dadka rajada qaba ilahay sifaadka aynu soo sheegnay buu ku tilmaamay aman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbih ilahay wuxuu tilmaamayaa miyay siman yihiin kan iyo ka kale ku habeen oo dhan taagan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u qunuutaya oo sujuudsan oo taagan oo rabbi baryaya oo aakhiro ka cabsanaya oo ilaahay naxariistiisa rajaynaya yacni alkhaa'if billaah waraaji nicmat allahi waraxmatih waa kan habeenkii taagan amaa ninka aan baabkaasi ku jirini waxay u badan tahay inaanu gelaynin kuwan la tilmaamayo waxaad ogaataa ilaahay cadaabkiisa cid walba wuu ugu goodiyey ambiyada loogu goodiyey soo ambiyadu dadka uguma sharaf badna ilaahay baa ambiyada ugu goodiyo wuxuu leeyahay dalika mima awxaa ilayka rabuka min alxikma walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhar fatulqaa fi jahannama maluuman madxuura baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala kaasi waa waxaan kuu soo waxyooday baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala nebi maxamed baa lagu leeyahy ee ilaahay cid kale ha ku lamaanaynin hadday dhacdo maxaa dhacaya fatulqaa fi jahannama maluuman madxuura ilaahay malaa'igtu cadaabkiisa ugu goodiyo wuxuu leeyahay waman yaqul minhum inii ilaahun min duunih fadalika najzihi jahannam kadalika najzi الظaalimiin ilahay isagoo malaa'igtiisa ka warramaya wuxuu leeyahay malaa'igta mid ka mid ee ilaahnimo sheegta baa ilaahay yidhi alle sokadii fadalika najzihi jahannam dee dadka inta kale maxaad u malaynaysaa marka dadka inta kale ninkii xumo sameeya ama wax walaaqda muxuu rajaynayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay ugu goodiyo walidalik baa salafu saalix waxay odhan jireen ninka ilaahay ku caabuda inuu iska rajaynayo una naarba cabsi ka qabin waa murji bay yidhaahdeen kaasi ninka ilaahay un cabsidiisu un wada ee janno iyo waxaway dadka cadaab un ku akhriya
وحروري بين هذا حروري هو خوارجته نينك إلهي سبحانه وتعالى إذا أنوان شعله يتشني النار يبابك كم تشري شعيلكم بيهيا نعم إلهي إن لا جعل هذا عظمة ديس وين ديس العظمة في نفسها تحب حتى بني آدم كيرير قفك بني آدم كأيدتك وحى اللون سني وكوين يهيدتك ولا شعلي قفك بني آدم كعادي كا إيه وحكتو ده يجلون سني وكوين مثلا جيس إن ما دودتك بني آدم كأكتو ده وكوين نينك جيس قدتك ويسك ولا شعلي بني آدم كأكتو ده وحكوين داغرة قفك الداغس قدتك ويسك ولا شعلي وهي الداغنة ماذا وحفي عنها يعني الصفات كوناكسن بني آدم كسيدي سوء شعليها فما بالك رب السماوات والأرض يسوي صفات له صفات كوناكسن ورد رب قيله من أجل عظمتي ولذلك ما إلهي قرآن كسكو كان بري وحو السفلية وحو خلق أبوري وحو النمع بحيي إلهي واسكان بريا سوي سكان شعلي سيو بني آدم كوحي شعلي عدة قفك وحكو سيكو أبالك كوله هو تعشيدي qofka markasta nimco ku siiya markaad u timaadaba wallahi ninkaas hebel abad waa nin rago abal badan bi gulay waa jacashay waayo waa muncim ilaahi ku nicmeeyo waxana nimco ku siiyay maxaad u malaynaysaa wala jacaliye idan waxay yiraahdaan al-anbiya iyo maqaamaadka sare dadka gaadha waa kamid jacaylku waxay rabbigoodu caabudaan الحب في الله يحب الله سبحانه وتعالى لكن waxa kaloo kamida inaad ka baqayso غضب كيسية عذاب كيسية صفات كيسة كلل شديد العقاب إنه يهي ذو انتقام إنه يهي جبار إنه يهي آخر إنه عران دونه ألا دكتهي أنبيدي إلهي والدورتي ما نلتقي يا من نوشة في عمرك إلهدان ضدك كوي إلهدان ربك يا ما أنت واعي سيه ومتى كرنه فعلا يرى السمايين مد ولا بو حصوصته إلا النبي محمد لقى عليه الصلاة والسلام إذن مع الأنبياء إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسة كبقية وخوف وكتشرة وكود الشرة خوف ضدك صالحين تيام بيد بين إلهي جنة السيو نبي محمد بالي يقول دعية والصيلة بوسكا عدة قولة يقلي دونتو إن أنا نقول نقضه وإنك الصلاة كستمر كي نكبح آذان كستمر كل دعوة يقول دعيننا لكن كي هذا نقول جنة مرة والنار مرة ون إلهي بان قرآن وينينية ونوع من الزندقة بين هذا لكن الصير إلى الله وصدح دار الله يسقط داره إن إلهي شعيل هذا قفته عابدش يوم هذا نقاد وما هذا نقيس إن هذا عبسيات كعب صريسه عرديس يا عقاب كيس يا عذاب كيس هذا عابدش وحي علماء إلى هذا والصوت كإلهي كوك حياة دوميس حولا دنقد بالغوك حياة بين هذا مكدقد بالغوك حياة وحكم إذا بيلي النار طين وعبسي قليل إلهي نتكو عابد سير الجنة سرار عينش ولذلك أيها الإخوة سلف الصالح صفات كان دمان بيلهاي ضد عبصدة يهانشري ضد عبصدة قار كود بوحل إلى هذا نار تمركي أركان دب كان ضدكو شتمركي أركان قلقل مشري ولذلك بقى إمام مجاهد وحلق الشيء قايس فصيرية نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سإلهي نارتكم مشيقين نحن جعلناها تذكرة بإلهين دبكا وحا يابا الله ينوسي وحا كمدا إن لينبوانيه تذكرنا النار الآخرين دب مركا دارك طبعين أدقرته تيك ويلايا كدنبيا محاد كيالي ويا ناركم بالليلي وجزء نارتي تضبات تنشير لسوق بوشي باطنة إذن تاني أدي دقنين كوطهي وتذكرة أيه تذكر إلهي كعب صنيه سبحانه وتعالى ولذلك بان رقي هوري رقبا يعبسده وحي كانتين هرد بكي من ويده رق حتى الصحابة كمده شداد بن أوس صحابي اللي أورنجري ثابت بن محل حسان بن ثابت باديروه والصحابة دي شام دقنان شرتي واحد هذا مركو فراش كيسه وهيده مركو قرقيسه تقو فراش كصيحده أيمو قلقلي ما يستاسدي حبض يرون مقلل طول سارق هلا هذا داوهم وحلقوا داوهم وحلقوا الشيله هدي واحد سليده مركه وضح شيله يسو ما ضبك ما اسكما خجيان waxa la sheelaya waa boodbooda mar alla ali markuu furaashkiisa jiifsado bay yiraahdaan buu galgali ma istaaseexan waaya markaas uu xooro jiray baa la dhahaa allahumma inna dhikra jahannam la yad'ani anha
saxaabiga kani wuxuu leeyahay ilaahay oo xasuusta jahannamo aan xasuusto iima ogolaanayso inaan seexdo yacni jahannamo xasuusteedaa waxay keenaysaa in hurda iga iman kari weydo markaasuu intuu istaaga abuu salaad bilaabi jiray baa la yidhahdaa abu sulaymaan iddaaraani baa wuxuu warinayaa taawuus taabicigii la yaqaanay furaashkiisuu dhigtaa buu yidhi markaasuu seexdaa waa isrogrogaa dabeetana intuu ka kaco xagga qiblada u jeesto ayuu wuxuu idhaahdaa xasuusta jahannama ayaa hurdadii caabidiinta la tagtay buu odhan jiray hurdadii dadka caabidiinta ah waxaa duuliyey xusuusta jahannama maalik ibnu dinaar ayaa wuxuu ka warinayaa ibnatu rabiic ibnu lkhaytham inantii uu dhalay ayaa waxay tidhi aabbow maad iska seexati aabbaheed oo gami waayey bay arkaysa dabeetana waxay leedahay aabba maad seexati wuxuu ku yidhi ina annaara laa tadacu aabaaka yanaam cadaabka xasuustiisu aabbaha hurdo uma ogola caamir ibnu cabdallah ayaa wuxuu tilmaamayaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku celinaya maan arag nin janno doonayo hurda ama qof naar ka cararaya oo seexday dabeetana wuxuu odhan jiray adhaba xaru nnaari nowm cadaabka kulaylkiisa ayaa hurdada tagsiiyey muu seexan jirin bay idhahdeen intuu waagu ka baryo waagu markuu baryaabuu haddana wuxuu odhan jiray adhaba xaru nnaari nowm maalintiina hurdada waxa tagsiiyey cadaabka kulaylkiisa casarkii ayuu dhici jiray bay idhahdeen gelinka dambaa in yari ka iman jirtay ragga kan marka aynu tilmaamayno rag badanoo salafkii ka mid ah waxaa la tilmaamay inaanay qosliba jirin walidalik ayaa saciid ibnu jubayr ayaa la weydiiyey bay idhaahdeen xajaaj baa ku yidhi bay idhaahdeen waxaan maqlay saciid binu jubayr uma qososhid markaasuu yidhi kayfa adxak wajahannamu qad sucirat oo saan u qosli buu yidhi iyadoo jahannamo weli la hurinayo jahannamo rabu samaawaati waalardi uu hurinayo oo loo hurinayo bashar dembaabay saan u seexan buu leeyahy waalaqlaalu qad nusibat waazzabaaniyatu qad uciddat salafka masaa'ilkan laga wariyaa waa tiro badan yihi waxaa ka mid a bay idhaahdaan cid jahannamo markay xasuusatay bukootay cumar binu lkhadaab baa wuxuu maqlay bay idhaahdaan nin tahajudayoo akhrinaya ina cadaaba rabbika lawaaqic ma lahu min daafic suuratu tuur akhrinaya mudduu bukay bay yidhaahdaan muddo ayuu bukay gurigiisa jiifo la ziyaaranaya aan wax kale lala booqanaynin baquhu u baqday daraaddeedu baquhu ayuha alikhwa alxaafid ibnu rajab baa wuxuu leeyahay baqaha ini waa waajib inina wujuubka way ka sarraysa in waa waajib oo inta kugu kallifta inaad faradka la timaaddo xaaraantana ka gaabsataa intaasi waa waajib buu leeyahay cabsida intaasi inaad cabsootaa inina waa maa zaada calaa dalik buu yidhi oo waa baqaha kugu kallifa inaad faydato oo dadaashidoo daacaadka aada la timaadid makruuhaadkana ka tagtid inna waa ka sii fiicantahay buu leeyahayoo waa inta keentaba inuu qofku ama bukoodo amase laba geeriyoodo oo dhinto ilaahay baa subxaanahu wa tacaala naartiisa inagu bajinayo wuxuu leeyahay kalaa waalqamar walleyli id adbar wasubxi ida asfar inaha la ixda alkubar baa ilahay yidhi inta rabbi dhaartay oo dayax ku dhaartay oo dhowr goor dhaartay baa rabbi wuxuu leeyay inaha la ixda alkubar naartu waa kuwa waaweyn bay ka mid tahay baa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala nadiiran lilbashar baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxaanay digniin u tahay bini aadamka faandartukum naaran taladaa waxaasoo dhan xadiidkii saxiixa ku yaalay ee cadiy ibnu xaatim xadiidkiisii dheeraaya uu ka warramayey markuu soo islaamayay uu nebiga u yimi ayuu wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa itaquu nnaar qaala waa shaax nebigu waa naga jeestaa haddana waa jeestaa buu leeyay isagoo le itaquu nnaar sidii wax qof wax arkaya oo loo soo bandhigay ayuu marna nagu yidhaha itaquu nnaar marna jeestaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam
حتى ظننا أنه ينظر إليها إلى أن مليني بيقول نبي إنه نارتي أركيه مركي دم نقول بيقول اتقوا النار ولو بشق التمرة وروي النار اسكا دورة تمر حيدنا النقطة فمن لم يجد فبكلمة طيبة حديث تقاركودنا التلماميس علماء دي هور الرقم إذا أبو الجوزان الله يرهدبه وحولي ضدك ما ملكود يا رمه هذا هدي وحون ليجا دي بالهابوري أنا قوة دوين كوردا وحون باندي الهابوري نندا واقع وحكلا قيلين إله النار 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 عدله أيما أنا قوم إلها تاجي الهابولي مالك بن الدينار بايسنا وحليه هدان عيدي قرقرته هيلي لها أنا والشقة وحن كاردي قال الله ضدك ما يلا يسوي ما دان أنت نستاجو إن أنا وحكلا أورانا النار النار يدهدو النار النار إن لا يدهدو ضدك اللود قدوة النبي محمد سبيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام تبورو بحي أيوا سباحا كغيلي وهل كيسوا مغلدو هيا أي كتير هذا كله قفكم مركب بلايا دو دعضه عرفت وسباحا وقيلي دوتنا والغصة عرري مركب الغصة حومي نبقى عليه الصلاة والسلام محو هيا إذا وهيا وقيليني وحيا هاي وروح رجين كديك ورما الربيسان يسابوه ردكوا إلى هذان إذا نلاحظه بورتني قدام بيسا علباص الصعدة هو اللي دينجليا مقالة ولا جليا وردي لالان هيا ملايكا قادنا يا ها بالليل بين بلغكم يا قرن سان لقى الربيسان وروح رجين كديك يا أبو الله عذابك عذاب كل الباردين كديك يا ولذلك بقى علماء وحيليه ابن إبراهيم ابن الأدهم باو حلي أمنية أن لا ينفطه نهوي نفي هداد أمنية كتر توامحي إلهي وحلي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أيها الإخوة وحاصوا آيات وأمنيات كآخرة مركا عذابك اللي يسكليا ما قياما اللي يستاقا ما نارته أي موقته أي اللقوة هلان هليا ربوا نعلي ربوا نعلي أنا عمل صوبا سوى سميني وحيابك لو حكمتها بن آدم كي يقل بهذه قيس ولو عادوا إلهي محولي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه waxay noo baahanay man najaax maxaa lagu badbaadayaa cuqbata bnu caamir ayaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi man najaax maxaa badbaado ah xadiidka imaamu tirmidi baa warinaya sheekh alalbaanina waa saxiix buu leeyahy markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam wallahi man najaax kayfa nanju min cadaab illah baa la yidhi ilaahay cadaabkiisa saan uga badbaadnaa نبي حكوير عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطياتك عرب كاغا هيسو كنترول وشيكينا وورنا وهذا الله ووضنا كورنا دي آخر الله انت اللي ما دو واحد كو هاد ليسيون لحسابنا هدا دكتين لحسابنا سو هذا كما كنتروشين نبي محمد وحلي بدبادة حدا دونيسو عرب كاغا هيسو غوريا غونا هكو قاض dadka kale iyo inagu waxaynu ka waranaa hebel baa waxa sameeyay dawladda halka ka boodisay hebel baa waxa ay kan baa saan yeedhayba wadaad kan baa bidco la noqday halkan baa ka baxday cid kale la sifeeya nabi maxamed wuxuu leeyahay wabki ala khatiyatik nin kale tiisa inta dilowda aakhira lagu oran maayo kuwa ka waran koogiya wax lagu weydiinaya adiga ya akhtaadaadi nabi maxamed wuxuu ku yiri hadaad badbaado doonayso wabki ala khatiyatik dambigaaga la ooy
طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته. ولذلك نبي وحط الماما يانك أوية إلهي درتي وأوية إنه كم يكوى إلهي سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عرش الرحمن كقوة هرسنا يا مال انت بدبادية. وحنبي قلت الماما يكوى النار تكبد بادية. حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله. لا بد حديث به صحيح. إلهي سبحانه وتعالى النار توح كم ممنوع. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. بدبادده انت تهدوا أوي لهيدي ندمك أوي دوية. ولذلك بقى وحل إلى dad keena kan rajada inugu badan inagoo aan camal bahaynin saalixiintu laakiin cagsiga ay haayeen iyagoo camalku ku badan yahay ayay haddana cabsiduna ku badnayd. Abi Bakar soo ummadda Nabi Maxamed kii u fadli badnaa maaha ayaa intuu ooyo oo istaaga oo carabka isku dhago ayuu wuxuu odhan jiray hada alladii awradana almawaarid waa kan ka meel xuniga tuuray. وأبي بكر وأنتو سلاد يسوع تقول سيدا قوري عندك دقاقين بالليل. أبي بكر وأنتو يا سلاد وتكريو أين أنت ستراد إله رسول كيسي وأبي بكر دتك إمام هاو غندقين ويا كثرة البكاء وأنت ستربدني ديسة عندما مغلم يسول لا تكن كريم مايو. وأبي بكر كي عين كاسة ويا عمر ما أنت مديد الله قليي أو جريان دارا صلاة سجدة تكينية أيام مدلة قلية جاب تنور داعي إن كيس عبد الله يا ويمي ومدح به عيد أنت وقروا قاضي أيو نبتي صار عمر باو حقولي ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. عمر بن الخطاب بين كيس الله ضي وحليه ويحك وإريان هبار هين لغة عربية لكن معناها بحين كرا لكن أنا لا أورنين مرك الله هبار تمايو وردا بنك يقدر كاسكدك بيده وحبر دفت هذا خسارين عيد عيسى إن ربي جاي إن حرست بولي بل ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي بولي. هوق باني هويا بوسقنا ديما هويا ديبا هوقتي هدي أن ربي جاي نحرسن يعني ولا عذاب إياه. عمر باكو هلان هلا يكو ليتني كنت منسيا له تبني انتو صامري بل ما انقري قاسو كلا هذا المامية وحال إلى هذا وجهي سنة المدو لبالين ومدو بيكل هيد بيد هذا عمر مركا وجهي سلا يو سيدو المين يي أي علامة كسم اسمه. عثمان بن عفان أي حبال دليمي مركزو أوي والمدو قرك كدر يسوي حليه لو أنني بين الجنة والنار لا أدري لا أيتهما يؤمر بي. هدان جنية النار نحتاجني وأنا قرنا إن الله بدأ مثل يقطور دونه وحنا الله إله وعيدي قدك ما صبرين نارتا مو قال كده. ورجالك عشرة المبه وكوي وغمضنا مسلم بقى كوي نكور رمينا نبي محمد بقى لابتيسو كأسير المرجل أما لباح سيدي وقو حيي يسقوا إلهي وتكني سبحانه وتعالى. أما الدرج سيدي وكركر لا يوكركر لا درج مركز ضبك الله صاره بيه وسلم الرجال وقايل يوصل قراه لابت النبي محمد بس سيدا سيوصل قريسي عبسي ربي قوت كعبسنا يا سبحانه وتعالى يا عذاب كيس. معاوية أيوة حوي من انضرار لا يلاحظه وكم إذا رجع علي تاجر يشتري مركز ورا علي السفاه ودعاي كوسي فايه مركو وحيابا كصور رمي بوحولي وحوها نمان أدون هم قري هينين وهبين كم دوقيسة وهشده والمدو ضريرته وعنو انت اذا ادك قابصده مرنا
inteeda gaaban ka xidha midkaaya markuu yimaado buu yidhi soo dhoweeyo naga mid ah laakiin weynayn iyo cabsi aanu ka qabno haddana aanan la hadal waxaan ilaahay uga markhaati kacayaa buu leeyahy inaan arki jiray habeenka madow goortay xidiguhu dhacayaan caloo ooyaya oo gadhkays haya oo ilmadu dareerayso oo sidii nin bahal qaniinay oo kale u ooyaya oo le yaa rabbana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryayoo leh adduunka la hadlayo ilaya tacaradat ilaya tashawafat ilaya tacaradti adduunow maanaad sukay soo bandhigtay maanaad sukay soo muujisay aniga kayrkay kadi saddex baan ku furay leh cumrigu waa gaaban yahay majliskuna waa mid liita khatartaaduna waa yartay adiga yacni waa lagu sabri karayaa ooyaya diraar baa wuxuu leeyay waxaan eegay mucaawiyahan u warramayey oo isna ilmad u dareerayso yacni saxaabadii nebi maxamed waxay ahaayeen kuwaasi uu nebigu ku lahaa kun fi dunyaa kaannaka gariibin aw caabir sabiil kaannaka gariibun aw caabir sabiil war adduunka ku ahaada sidii mid jid goynaya ama gariib ku ah waa kaa uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wassalaam war ninka hamigiisa oo dhan mid qura ka dhiga buu leeyahy nebigu ilaahay humuumta kale isagaa kaaga filaanaya haddaad adigu hamiga aakhire isugu geysa baa lagu yidhi oo naar ka cabsatid oo janno hunguraysid oo raganimadaada iyo taladaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo xiniyahaaga iyo ninnimadaada iyo aftahannimadaada iyo magacaaga iyo maamuuskaaga haddaad ku dalbayso adigu aakhira ay tahay meesha xooggaagu aad ku maqan tahay ilaahay baa kaaga filaanaya buu nebi maxamed leeyahay inta soo hadha marka hadduu hamigaagu naar iyo janno yihi ilaahay baa kaaga filan inta dambe amaa hadduu hamigaagu adduunka noqdo taadi lowdo ilaahay dan kaama laha baa la yidhi dooxooyinka dunida iyo hamiyadeeda kaleh ku halaagsamayso kolle mid baad ku halaagsamay adigoo uun warwarsan bay kaa boodiye kay kaaga boodayso ilaahay dan kama le baa la tilmaamaya qofka hamigiisu noqdo war aakhiro saad u dhaqaaqi nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofnaba ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo waa lagu ribdhayaa ma dhaqaaqi kartid su-aalo shan ama afaraad oo ka jawaabo mooyaane waa taagnaanaysaa qofka ka fekeraya maantaasaad u dhaqaaqi doontaa dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi ilaa lagu weydiiye war cimrigii maxaad ku bixisay cimraa lagu siiyee saad u isticmaashay wakhtigaagii dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war cimrigu isku mid maahayna intii dhallinyaronimadii xoogga aada lahayd xaggaad ku bixisay dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane war waxta xoolo shaqaynaysay xaggaad ka keentay ma xaaraan bay ahayd mise xalaal dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane xaggaad ku bixisay dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war wixii lagu baray maxaad ku qabatay aqoontaadii mid adduunya mid aakhira ha noqoto ma ilaahay bay kuu hoggaamisay ma rabbaad kaga cabsatay ma dad baad wax ku tartay mise waad ku xoogsatay uun ta diineedna waa lagu xoogsadaa haddii la rabo taa maadigaana waa lagu xoogsadaa haddii la rabo wuxuuba ma xoogsay kaa ahayd una waad ku xoogsatay mise ilaahay baad kaga cabsatay subxaanahu wa tacaala qofka mu'minka ahi maalinta aanad dhaqaaqaynin si aad uga fakertaa bay ku xidhantay haddaad fursadda haysataa waxaana la tilmaamay ilaahay inta lagu hortaago inaad sida birta u ribdhanaan doonto aanad dhaqaaqi doonin adigoo jawaabo ka bixiya mooyaane jawaabahaad ka bixiso ayaa waxay jawaabu yihiin dhankaad u dhaqaaqayso inaad xagga janno u dhaqaaqi oo aada badbaadi iyo inaad xagga naar u dhaqaaqi oo aada halaagsami jawaabtaad kuwan ka bixisaabay ku xidhantay ayuha alikhwa waa hubanti qofka mu'minka inuu rabbi rajaynayo oo aan camalkeennu ku filayn marnaba janno oo aan camalkeennu ku filayn marnaba inaynu naar ka badbaadno oo nebi maxamed baa leh calayhi salaatu wasalaam midkiinna
عمل كيس جنكم قليه ولا أديك بيكوي راهده ولا أنا بيدين إلهي ونحرست مويان لكن استجلاب الرحمة باللوبة هي إلهي نحرستي سسادو كان صريسة صادقوا بير إلهي كوا إلهي ونحرست إلهي هو كعرر يا نحرس مية معقولت إلهي وقت جاي وحكى لكم بحين يا نحرس إلهي كوم جادا نحرس إلهي النار كبقي ما نحرس إلهي جنن الدوني ما يجلي وحوكسن ما يجلي فقل ضنت وحصحي وحويان إلهي عذابك كان كعب يا يجبد بادي إلهي الجنة هذا هم قريقها يا يجي لكن عملك وشره ولذلك أيها الإخوة آفدوا حقيقة بمرك محاكا صديداتكم يدو النار لوجيه إلا سيحضي يدو قريقا كوحيقا وقبنيو إنا نطر هذا واسيحنا يا محاكا صدي يدو جنة لغوية بوهي إنا تكسيحة محاكا صدي وحاكا صدي بي علماء دو إلى هذا وضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وحير هذا دادكو رمينت أي رميسيين آخرة إيا مالنت قيامة رمينت اللوجة دا وحويان وين أي وحن كهر جوغان وهذه مكاركيسة نلش هذا وين أنا قال بدين إلهي سبحانه وتعالى وين أنا آخرة قال بدين قرما اللي بدان أوقات الغفلة هدي تربضت هدي موجنانتي يدو هنانتو كوكو بضته قفك هذه يقول دنسة قام حين رانا واروا مد عقل قال قد بولو دنتي سبب ما يقام wax kale iskaga mashquuliye waa hadda midin yaro shaqo ay ka hilmaanto ka luntay ama xogaa yaro lacag uu soo qabsan lahaa ka luntay ayaa dadku dhami canaananayaan waxay leeyahay war waa bahal dhaandhaana waayo deyntaasay u jirto uu qaadan kari waayo shaqadii intaasay u jirto uu qabsan kari waayo dukaankiisii intaasay u jiro wiila kaasayna wada canaanana kaayayama dhoohan ninka naariya janna sugayaan aan ogeynba keeba dhoohan كيف غفلة كجرة غفلة تاني وإيمانك آخرية إله إلا الربع سنة يليتي وايو إيمانك هدو كرده آخرية إله إلا الربع سنة إساقا كينا إنو قفكو طاعة مركا باديو عبسيدنا كوك اللي فوق معاصدة كفقاده ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كويا لي لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن بالنبي يقول ايه ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن مدي دنين ومكة سنين خوارج لا معاصده يا إيمانكم ما وضع كل ميان وكي خمر عبي يا إلهي يا رسول كيسة على نبي وحده لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله أسل الإيمان مدة في السنين لكن إن المعاصي قدر كي كاك حين لها مغن أيها الإخوة علاجكم مركز يوحي هي إنه إيمانك إن الدبر السنة صحابة إنه كور رميني أنت أرى قرآن كآخر سنبا إيمانك قال قرآن كما أنت أرى قوة بدنين قرآن بدني بما ككم السعود دقين مركي إيمانك قلي وكسنة الصحيحة ابن عمر وليه هي عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن واختاروا النور يقولوا متكايو إيمانك اللي سينشري إنتان قرآنك لا سينين يعني علمك بدندي سما هنا إيمانك بدندي سوا احتريي كو إيمانك سوء حوغية قرآن كم بائنا بري سيدا اللو حوغية قلبه وحا قلبي بلو يري تقلب كيس هي النسيان بدندي سيا لو شيء بدنديس وحوبة هين حصوصة اللقوع العلية إلهي ساد رادت قرآنك وينوقع العليا آخره يا جهنم يا عذاب كذا وينوقع العليا جنة يا النعمة طالة وينوقع العليا إلهي وينديسه إلهي وينوقع العليا سواء آخر الله ينحصوصين إن ساعة آتية أكاد أخفيها وكل أرت إلهي والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق أنت إلهي دارتي وحاصر داره يا إلهي وحلي وحلي يبوهي وارد وإن الدين لواقع قيامنا ودعية إلهي سبحانه وتعالى نبي سولي وغدار وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي نبي محمد بلى لي أدنى داروش لتأتينكم
إلهي سبحانه وتعالى إن بدن بو إنوغو علعلي إنو شاق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مصحف كقرآن كهدات ركركته بيج إلهي وينيدي سي جنة النار كم غطي ومالين ما ينتك سهلس لح بقول يا فرت بيج وككوبية هي خادم الحرمين وكانوا ضابعي هدات بيج ساو ركته ومالين ما يبيج عن ربي كورميني وينيدي سي عظمة دي سي لقى بغضه أما أنك ورمينين جنة النار إن لقوع العلية وطريقة قلبي قال له الدورية dadka in wacdigeeda loogu celiyo naar iyo janno in la xasuusiyo in loo tafsiiliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan badan buu soo dejiyey caaisha waxay tilmaamaysaa qur-aanadii ugu horreeyey nebiga ku soo degay waxaa ka mid ahaa bay leedihi qur-aan janno iyo naar ka warramaya qur-aan janno iyo naar ka warramaya وإلهي سبحانه وتعالى مدنا كو عبسينيا مدنا كو هنغوري غلينيو وخي ugu horeeyo quraanka soo dagaabay leedahay haday xalaal iyo xaraan noqon lahaa dadku waxay oran lahayn waligeey zinada kama tagayno iyo waligeey wax khamriga ma daynayna oran lahayn laakiin kuwa lama soo horeysiinay waxa la soo horeysiyay janno iyo naar iyo ka warankeed waxa la soo horeysiyay suuratul mudaththir oo ilaahay ku dhaartay inuu ka waramayna ka waramaysa innaha la ihda al-kubar ku jirto waxa la soo horeysiyay quraan cibaadada ka waramaya in la istaagiyo habeenkii la kaco ya ayuhal muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu ilaahi subhanahu wa ta'ala ulayhi kan istuduubaya iyo saxaabadii ba istaaga habeenkoo dhan in yar mooyaane ama badhki ila la soo gaarsiiyay inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu watar wa aqwamu qila ضعفك إيمانك وحا دوية ضدك والله حصوصية وحا آخرة ضمبية وحا جنة إيا النار كورمش إلهي سبحانه وتعالى جنة وكورم نارنا وكورم قرآن كوا كفي الليدين ليدا دور نار باشرتيسكا إلالية لكن لما أورانيني وحا ليري نار تاقليسة ولا قد بيلا ولا إن بيلا وهم فيها لا يسمعون بالليل نبي حديث صحيح مسلم كويا لي أهلها عمي وبكم وصم بو نبي عليه الصلاة والسلام ويدل دقيقة عند يمال والبلاء نار بالغا ورمي لكن كالي قد لقى مورمين وحليلي وروتشقا إذن كالليفسة وتشقا إذن مدوبانية كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل تلفح وجوههم النار وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لهم من جهنم مهاد ومن فوقها غواش ليس لهم طعام ومن فوقهم غواش ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل يغلي في البطون وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما وقطعت فقطع أمعاؤهم إلهي سبحانه وتعالى وحاصرا محالوغا والرمية فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب إلهي سبحانه وتعالى انتو النار كورمي وحلقوا عنيه وحلقوا عبيه هو قال لك الشنيه ماشي اللي دقيه سيدا اللي يسدوا اللينيه وحلقوا قايلينيه وحلقوا الصبكانيه وحل عبيه وحل عنيه وحلقوا تفسيليه وحويان اللي عبسي قليه جنة إلهي مركو كورمينا وجنة لما أوران وحل الشيء وحل معكو تشره وبيد الدريرية خمر له شراب له ملب له عانى له وحل الشيء حور العين تشوكته وحل الشيء حور العين تيسفيه حتى إلهي ناسيه وكورما قياس رب السماوات والأرض مركو حور العين تسفيني كواعب بوكت المام عرب بوكت المام إلهي وحو كورما ينقم كوديا أخلاق دوديا سيديه
qurxdoodu ka warramay xataa ilaahay wuxuu ka warramay waxaan naqaayisad numar adduunka markay joogaan ay leeyihiin inaanay lahayn dhiigooda laga warramay inaan dhiig iyo mid dhalmo iyo mid dhalitaan iyo waxba toona inaanu ka iman baa laga warramay mar walba inay diyaariyeen baa ilaahay ka warramay maxaa loo sifaynaya maxaa sida tan loogu balbalaadhiyey waxa loogu balbalaadhiyey waxa weeyaan in wax layna xasuusiyo walidaalika ayuha alikhwa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka uu tilmaamayo lamara mithla annaar naama haaribuha walaa mithla aljanna naama taalibuha waa war layna xasuusinayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam adduunka markuu joogay ee uu maka joogay ee la dhibayey ee nafta la isugu keenay ee ay noqotay inuu baxo ee ay u yimaadeen ansaari ee ay heshiiska la galeen heshiiskay la galeen maxay ahaayeen wuxuu nabigu yidhi iyadoo carab oo dhammi raadacaynayso meel uu galo u la-yay bay waxay yidhaahdeen waa ku difaacaynaa naf iyo maal iyo nafiisba waa kugu bixinaynaa carruurtayada iyo reerkayaga iyo waxaanu ka ilaalino saanu kuwa u ilaalinaa baanu kuu ilaalinaynaa ee maxaanu leenahay bay yidhaahdeen maxaanu leenahay dowladnimadaa helaysaan aniga dabadaybaa madax noqonaysaan waa dhergaysaan waa badhaadhobaysa baabkaa nebigu kama warramin muxuu ku yidhi walakum aljanna buu yidhi walakum aljanna aalu yaasir oo la cadaabaya buu soo maray qoyskaa reer yaasir oo islaantii la toorjar garaynayo toorjarkii ku dhimatay sidii loo garaacayaa naftu ka bood oo odaygii sidii loo garaacayaa naftu ka bood oo camaaroo inan yari markuu adkaysan kari waayey ayuu wax ku hadhadlayo dabeetana nebiga u yimi isagoo ooyoole ilaahay rasuulkiisiiyo markii garaaciiga tiro batay baa waxay sheegayaan idhi hadday kugu soo noqdaan iska dheh buu nebigu yidhi intay sidaan arrinku yahay kuwaasaa loo cadaabaya markuu soo mara buu lahaa sabran fa ina mawcidakum aljanna janno qabaa'ilkii u yimi yidhi waa kuu gargaaraynaaye adiga dabada madaxnimada waxba ku leenahay baa la yidhi arrinku annaga ma nagu soo wareegaya wuxuu ku yidhi ilaahay baa arrinka iskale iska taga innagu waxaynu isugu nimaadno dadku inta badani waa maxaan helayaa shaqo urur siyaasad waxa la doono waxa la isugu yimaadaba qofkii ka dhaxarki waaye wuxuu helayaa waar meesha waxba lagu hayo dadka la xijiraya buu oranaya waa la daalinaya war waxa la helayaa waa janno ee janno ma u shaqaysanaysa qofka muslimka ah waxa lagu shaqo galiyaa waa janno hadduu madax yahay hadduu siyaasad yahay hadduu miskiin yahay hadduu meel dhex joogiyo hadduu taajir yahay waa janno wuxuu u shaqeeyaa waxa uu lagu shaqo galiyaa waa cadaab laga cabsiyo inuu naar ka cabsado oo nabi maxamed leeyay innii nadiirun lakum bayna yaday waxaan idinka digayaa maxay cadaab shadiida buu leeyay walidaalika ayuha alikhwa waqti cibaadaad ku soo jirteen waana laga yaabaa barri inay ciid noqoto ama saa dambe ciid noqoto shaydaamadii waaweynaana waa lasoo fasaxayaa ibliis iyo intuu watay maradatu shayaatiin waa la soo daynayaa oo hadda waa maqnaayeen intan cibaadada aad badsateen kuwa yaryar baa la legdamayseen hadda laga bilaabaa u baahantiin inaad dagaalka bilowdaan ilaa nimanka kuwii yaryaraa bay ahaayeen waxaa la legdamayseen intan masaajiddu buuxsantay ee salaatuleylku tiro batay ee safka hore la joogay ee soonku tiro batay qolo iyaga kuwa yaryar baaba ka adkaato waa kuwa dabadda jooga kuwa haddii kuwii waaweynaana kusoo baxaan ilaahay ha badbaadiyo laakiin inta masaajidda ka camirtay ee camiratay waa intii yaryarka isku dayday inay iska dhiciso kii weynaabaa kugu soo socday miyaad fasax tegi haddaba adiguna kuwii waaweynaabaa soo socdee adna miyaad fasax tegi mise haddaad laba jibaari waxaad leedahay haddaan soo shidaal qaatay ramadaan waa meel laga shidaal qaato waa meel zaadka laga qaato haddaad saadkaagii qaadatay haddaan u shidaal qaatay baad leedahay kuwa waaweyn inaan iska celiyo deriska maanta waxaan ugu talagalay wuxuu yahay inaynu dib u xasuusanno
إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المامية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ننكي النار لقى الريحة با إلهي نار ننكي لقى الريحة إيه جنة لقى كاس بالليباني درس كمان توحكوك وبنيه إنه إلهي سبحانه وتعالى وينينه وجعلانه ومهد علينا فلا يكون عبدا شكورا إنه عبصنا وبقنا والنار بعد بيسو الله با إنه إيمان يسوه الله با إن جيري كاحكته ويا مركا كواد حباشا لغدقه أيا أيضا تتيجا قلقوا يدينيا ما لها نسكرتو مركا كوتشوتشيان يقول كان ترى الله ده يوم مركا تصاغ شمعة لغوا يديا أغانسي كان صحيح كماها أي دي كان أي دي جوه عدايا محي هنا دمشق ولا تيامين في سوا هي ستام الشرع وهي ستام الدقنا شيء ده أم باصبورا ما نما طهيب الله شيء ورمر كنفط لقى سوق أفتح لبا ملكو يمانيا أي دي جا قديبة بالقولي أي دي جو مركا ما أها ما قاعد خير كيني قبيل كيني محد حوله هي ستي خير يعرور محد كتبيه أدونك محد حوله كتبيه خير ما ده هي أي دي جو كامها أي دي جو واسد حساله ده قرا ومن ربك وما دينك ومن نبيك that's your ID وحكى له عيدك ويديني سامجرته وريكون ربي دين تهي ستي واتما نكي اللي دين صاري محاد كرم يسنيد الرجل الذي بعث الله فيكم محاد كرم يسنيد هذا النبأ هيد مركز الدنيا ده شوكتي إن تكون رقم يسوع عبسنا يسي إلهي ببلن قاضي إنه مركز أكو هالشينية وموقف أرجح بدل ما هو سؤال سعادي اللي هو يدينيه لبا ملك وأركتيده ده لقى عبس قبه قفك بني آدم كمركو عبس ده سماه وقول وحول بينه إلا به هديم كلجوه هنشبه أنت لجو قلقله وقول ما قاع إن تهربه وقرنه إذا به وبدن تيرت صسته لبا ملك إلهي النوع ده كور ربي النوع قارع وصبر ده نار ستوك سوق قلقله يوكو فريسنا إياه وبقى هردلك كرجو أيوة أنا دهليلي إني ندو حباب حسوسته أيانا سؤاشك ويديني إلهي نوح ليه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قرمة في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا هل كان إيمان كردستي أي ديجا مركا والله صباحي سوا كم بعد هذا هدي هل كان مركا شوكتي أنا عبسين شيرين هل كان مركا شوكتي أنا إلهي الرجين شيرين هل كان مركا شوكتي أنا بدبادة وحدنانين أي دي بداول بمات ذنين أما متجوجو أيوة أنا الآخرين كرايم بوها دن مركا عبسدو تمادنا مش يجي كريس إذن نار إن أتقشوا يا إن أتجنة قشوا أنت كاب حسابك عجا هردي سما دركتدو مالو والبمد لسيسي دو مش هسألو سيدا قف كستو لسيسي ده هل كسألو سيدا إن أضدنا لجو سيدا والبرقسيو هل كم بنفتو كعجا بودي كرتا بعد ما غشامون هبلو فرديا ودنه يستاجي يا قارات شيري يا مال بكسر دعي يا نفتو ما كبحض يا هبين قولوا وراقة يا دول الشيء يا واد ما غشا وحن رباينا إذن حسوسيه إذا إذن صار رمضان وارد ما طيه ولا معصية بكبلو ده عيد بقى عيد بقى هذا ولا معصية بكبلو ده ولا كبلو ده عيد بينو صلاة الصبح سو حادري وهي اللي صلاة الليل بكا عليه هذا مساجد يوم صلاة الصبح وعمرنت رمضان مركي لما تقوم بدويس أبدتك مصباح مغن دكي وينابا لسود دايو دوشا كافولي نوم طويل وقت بدن باكو هرسي حبو بلابيا راسات لا وقت قاعد دون تورت انت اقيمك سي يرتشيف marka la qiimo wada ran sawad keeri gaarta kulli jamci ku dhaafiya dabacad cid horteed ba tukan kalbadayda waxaan ku soo koobaya ilaahay waxaan ka bariyaa inuu dariiqa saxayna waafajiyo naartaasna in ilaahay naga badbaadiyo subhanahu wa ta'ala jannadiisa ana wadada loo maro inuu inoo fudaydiyo kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala daacadiisa ku sugay inuu inaga yeelo kuwa rabbigood ka cabsaday in Allah inaga yeelo منكر كيانا كي سؤاشو دا كوا إلهي سوغو إن الله يرغو دارو
innaga iyo intiina dhashabeen ilaahay u naxariisto muslimiinta dhammaantoodina ilaahay u naxariisto wixii dhibaato haysata in ilaahay dhibaato ka faydo dhibaato si naar ka weyne ma jirto in ilaahay taa inaga wada badbaadiyo وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين